يا صومالي بالي صومالي يا صومالي بالي سردا هدي كوارتو هدي سلعيو دبقارو سمانتد يا حمانتد صومالي يا صومالي بالي. munaasabad si heer sare ah loogu dabaaldegayay sanad guuradii 66aad ee kasoo wareegtay xorriyadda iyo midnimada Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana munaasabadan soo qaban qaabiyay maamulka isbitaalka ex-Digfere Erdogan iyadoona ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda dhaqaatiir wasiiro maamulka isbitaalka iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay maamulaha guud ee isbitaalka Erdogan iyo agaasimaha isbitaalka kuwaas oo xusay taariikhda maalintaani u leedahay dalka iyagoo ku baaqay in la xoojiyo midnimada wadajirka iyo horumarka lagu gaari karo adeegyo caafimaad oo tayo leh. Konuşma metni hazırlamıştım fakat biraz program uzadı. O yüzden kısa keseceğim. Çünkü uzun hazırlamamın sebebi şuydu. Bağımsızlık günleri toplumlar için çok önemlidir. Milletler bunun için çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Zaferler öyle kolay kazanılmıyor. Aslında bununla ilgili uzun bir konuşma metnim vardı. Ama halkımız, Somali halkı... caawa waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii 66aad ee ka soo wareegtay markii ay xorriyadooda qaateen gobollada koonfureed iyo midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfur. xaqiiqatan waxaan sidoo kale xusaynaa safarkii dheeraa ee ka dambeeyey muddada ka soo wareegtay 66 sano oo runtii marxalado kala duwan iyo xaalado kala duwan aan soo marnay. runtii waxaan leenahay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo u adeego dadkooda takhasus leh aqoon iyo xirfad leh si wanaagsan runtii dalkooda iyo dadkooda u adeegi karo wax badanna ka bedelay adeeg bixintii caafimaadka. 15 sano ka hor isbitaalka hadda aan joogno muusan jirin dhaqaatiir badan oo caawa ayagoo dhaqaatiir takhasus nala fadhiyana runtii maysan joogin halkan mana aysan lahayn aqoonta maanta ay leeyihiin. maantay waxaan haysanaa dhaqaatiirtaas waxaan haysanaa kaalkaaliyaal aqoon iyo xirfad leh